وريها Soomaaliga ah waxa ku waajib ka saaraya dalkiisa dadkiisa وريها Soomaaliga waxa rabaa inuu garto inuu soo dhacdhaad ka ahayn dalkiisa dadkiisa waxa rabaa inuu garto inuu adeegayo dadkiisa waxa rabaa inaad tusaale ka qaato وريها kula midka adduunyada markay Ciraaq la weeraray Saddam Hussein la bidaayo وريها Mareykanka taangiga ciidamada Mareykanka ayuu saarnaa tuutaa ciidanka Mareykanka ayuu xirnaa wuxuuna madaxweynaha Ciraaq la dilay Saddam Hussein isagoo Baghdad ka talinayo dalka xukumayo xulaha hogaamiyaha kaliya taliska hogaamiyaha baxsadka hogaamiyaha nafla caariga erey noocaas u isticmaalay idinkuna maaragtay waxaad ka baqaysaan inaad al-shabaab tirahdaan maleeshiyada al-shabaab waa kuwa aad aragteen ee soobadadka ku xasuuqay waa kuwa aad aragteen naasahablo waa kuwa aragteen maalin kasta idinka idin dilaya waa kuwa mid kasto idinkeedii kamid ah u qorshaysan inuu dilo waa kuwa adinka marka aad iyaga ka baqaysaan wararkooda aad sida dabacsan u sheegaysaan iyaguna diyaarinaya qorshe iyo istiraatiijiyad ay idinku dili lahaayeen marka dadkana unaxa idinkuna naftiina unaxa una adeega dadkiina kana qayb qaata in cadawga al-shabaab laga guuleysto waxaana loogu guuleysan karaa in wariyo uu garto in al-shabaab uu yahay cadawga dadka Soomaaliyeed loona la isticmaalo luqadda ugu adag ee loo isticmaali karo adduunyada waad aragteen marka warbaahintu ay ka hadlayso al-qaacida ama daacish waxa la yiraahdaa argagixiso kooxda argagixisada waxa dhacay weerar qarxa dhacay waxa leeyahay weerar argagixisanimo weerar bahalnimo ah weerar fuleynimo ah weerar ahmaqnimo ah erey noocaas isticmaalaan weerarka Muqdisho ka dhacay ee Soobe waxay warbaahinta adduunyada oo dhan isticmaalayso weerar argagax leh weerar maaragtay bahalnimo ah maaragtay idinkuna waxaad dhahayseen qarxii Soobe lama yaqaan cid ka dambaysa waa qarxii Soobe cid ka dambaysa haday waad ogtiin adinku anna waa ogahay qof kasta Soomaaliyeed waa ogahay qarxaas inuu al-shabaab sameeyay qof Soomaaliya oo maanta waa hubaa inuu jiro inuu san jirin oo shaki uga jiro inay al-shabaab qarxaas sameeyaan marka waxa la yaab kale waxa kamid ah wariyaha Soomaaliga ah isagii ayaaba waxa uu ka shaqeynaa aad garanayn marka qaarkood oo isleedahay war qofkan miyuusan Soomaali ahayn war aawi damiirki war aawi dadnimadii war aawi islaamnimadii war ilaahaad ugu dhawaanay inaad shabaab xaqiiqda ka sheegto shabaab ay kumalihi shabaab dacaayay kumalihi laakiin runta ka sheeg ha ka gamban wariyaha qaarkood xitaa marka ay siyaasiyiinta wareysanayaan haday shabaab dhalaacayaan ay weeraraan qaarkood way baqaan codkeedii inay ku sameeyaan waxyaabaha marka waxa la rabaa inaynan ka baqin oo ku dhiirataan oo shabaab runta u sheegtaan oo si professionalism arrimahan uga hadashaan qof kastana uu ku xisaabtamo dalkan inuu leeyahay dalkan cid kaama xigto wariyaha u dhahay dhexdhexaad baan ahay war maxaa